halkan waa duleedka deegaanka Bariire gobolka Shabeellaha Hoose. Khawaarijta ayaa laba gaari oo Leyla ah qaraxyo ku soo raray si ay ugu beegsadaan fariisimaha ciidamada. Waa ay ku ordayaan halkan waa Qardajeex. Waa kan gaariga koowaad ee Leylada ah waxa uu suurtagali weysay in uu ka gudbo halkan. Kor ayay ka ilaashanayaan geesiyada qaranka. Sidaad arkaysaan halkaas ayuu ku basbeelay gaariga koowaad. Waxa yimid gaarigii labaad. Halkan ayuu ka gudbayaa, asna halkan ayuu dhaafi waayay. Waa kan godkii loo qoday ayuu ku dhacay, kadibna waa la beegsanayaa. Waxyar kadib waxa ku dhacaya gantaalkii loogu talagalay. Halkaas ayuu ku firiray isaguna. kadib markii inta la soo dhaweeyay gantaal lagu dhuftay. Kor ayay ka eeganayaan oo ka duubayaan kaamiradaha qarsoon ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Kooxda khawaarijta ah ayaa labadan gaari oo Leylada ah doonayay in ay ku dhibaateeyaan ciidamada qaranka iyo dadka shacabka ee gobolka Shabeellaha Hoose, balse ciidamada qaranka ayaa ka hortagay dhagartan iyadoo wax khasaaraha uusan ka soo gaarin dadkii iyo ciidamadii toona. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Sahal Cabdullaahi Cumar ayaa ku tilmaamay ka hortagga gaadiidkan qaraxyada ay ku soo rartay kooxaha khawaarijta ah feejignaanta iyo waayo aragnimada ay qabaan ciidamada qaranka. Wuxuuna intaasi ku daray in howlgallada nadiifinta ay sii socon doonaan ilaa laga baabi'iyo khatarta kooxaha khawaarijta ah ee sidaan oo kala doonaya inay dadkeena u dhibaateeyaan, balse ciidamada qaranku ay u diyaarsan yihiin in ay ka hortagaan gebi ahaanba.